Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay guddiga amniga doorashooyinka oo isugu jira taliyaasha booliiska heer federaal, heer dowlad goboleed, gobolka Banaadir iyo taliska AMISOM. Kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo dardargelin lahaa howlaha horyaalla guddiga amniga isla markaana u xaqiijin lahaayeen hanaanka amniga doorashooyinka dalka iyo goobaha ay ka dhacayso. Guddiga amniga doorashooyinka ayaa Ra'iisul Wasaaraha warbixin ka siiyay shaqooyinka ay qabanayaan iyo qorshayaashooda oo ay ka mid tahay in goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka la geeyo ciidamo booliis oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo booliiska AMISOM. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddiga amniga doorashooyinka xasuusiyay mas'uuliyadda adag ee loo xil saaray ee ah inay si daacadnimo leh iyo xilkasnimo iyo mas'uuliyad ku jirta u gutaan waajibkaasi. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda kulanka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo taariikhdu tahay 13 bisha Julaay 2021 waxaa ku qabsoomay xafiiska Prime Ministerka dowladda federaalka ee Soomaaliya shirkii ugu horeeyay ee guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed oo ay ka soo qayb galeen dhammaan saraakiisha ugu sareysay ama hogaaminaysa ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada ay ka koobantay dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir waxaana looga hadlay sidii si midnimo ah oo isku duubnaan ah oo isku aragti ah looga qayb qaadan lahaa doorashada inay ku dhacdo si amni ah cadaalad ah qof walba oo Soomaaliya uu raali ka noqdo. waxaa shir gudoominayay Prime Ministerka dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha waxa kale iyagana ka soo qayb galay AMISOM iyo muxuu ahaa UN-ka ayaa ka soo qayb galay. 9 xubnood waa 9 xubnood oo markii horeba uu magacaabay Prime Ministerka dalka inay hogaamiyaan amniga doorashada fooda nagu soo hayso. waxaan rajaynayaa la iskuna raacay isku aragtina laga ahaa inay si hufan u dhacayso kuna dhacayso. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa leh mas'uuliyadda hubinta hanaanka doorashooyinka dalka gaar ahaan korjoogteynta iyo la xisaabtanka guddiyada kala duwan ee ka shaqeynaya doorashooyinka.